ruux walba oo dunidan ku nool mar walba waxa uu jecel yahay ama mar walba waxaa qalbigiisa ku weyn in uu ku guuleysto miraha jacaylka kuwooda ugu raxmadda badan ugu naxariista badan. Marka laga hadlayo magaca jacaylka, inta badan waxaa la sheegaa hal qof jacaylka inuu u saameeyo si dhab ah, kan kalena markuu ogaado in qofkaas si dhab ah uu jecel yahay, waxa uu isku dayaa sidii uu u lugoy lahaa ama wax walba oo nafsadayda ku saabsan ee markaas u wada qaadan lahaayeen. Qofka jacaylka dhabta marka uu hayo nafsadiisa ma xadidi karo, mar walbana waxa uu isku dayaa qofka uu jecel yahay inuu waco, xitaa taleefanka haddii laga qaban waayo dhowr mar ayuu isku dayaa, wuuna ku soo celceliyaa. Qalbigiisa su'aalo fara badan ayuu weydiiyaa, taasoo ah muxuu taleefanka kaaga qaban la'yahay, maxaa ku dhacay, sidee wax u jiraan, maxaa haysto iyo waxyaabo kale. Mar walba waxa uu raadiyaa oo liinkiisa haddii uu noqon lahaa Facebook-ga, WhatsApp-ka iyo baraha bulshada meel walba ay ku wada xiriiri jireen. Qoraal joogto ah ayuu u diraa, saacad walbana wicitaanka ayuu ku celiyaa. Waa marka qofka sida dhabta ah uu ku jecel yahay. Kan dhabta aan ka ahayn mar walba waxa uu isku dayaa rabitaanka. Markii uu ogaado in si fiican loo jecel yahay, ayuu isku dayaa mar walba inuu sameeyo waxyaabo aan macquul ahayn, haddii ay noqon lahayd sharafta markaas in lagu dilo, ama haddii ay noqon lahayd jacaylka markaas loo hayo in waxyaabo fara badan uu uga faa'iideysto, oo ay ka mid yihiin dhegeysiga taleefanka inuu ku dhegeysto, uu dhaho mar walba waa mashquulsanahay, iyo waxyaabo kale ayaa i haysto, ama dana kale ayaan ku jiraa, anaa ku soo wici doono, mar kale ayaan kaaga jawaabi doonaa, isug iyo waxyaabo kale oo aan loo joogin. Waxaa laga yaabaa sidoo kale in uu mar walba uu sameeyo waxyaabo uusan Ilaahay raali ka ahayn, markaasna laga yaabo qofka aad ku jeceshahay in jacaylka aad u qabto uu kaaga faa'iideysto. Adiga oo dhibaatooyinkaas dhan u maray ayaa haddana waxaa laga yaabaa mar walba inaad tahay ruux murugo ku nool, ama aanan garanayn jacaylka loo hayo, sababtoo ah qofkan wuxuu iska dhigaa qof daacad ah. Daacadnimada aad u tahay ayuuna inta badan kaaga guuleystaa, heer marka dambe uu ku gaarsiiyo xitaa inuu ku dhaho faamilkaada kasoo wada tag, ama faamilkaada nac uu ku dhaho. Marka taasina aad samaysid, beri waxaad ogaataa inaysan jirin qof qalbigaada soo hor istaagi doono, ama garbahaada soo hor istaagi doono. Maxaa yeelay qofkaas uu kaa guuleystay, faamilkaada ayuu kaa jaray, saaxiibada ayuu kaa jaray, iyo cid walba oo markaas uu islahaa garbaheeda ayay noqon lahayd. Weligaa yaa allaha jacaylkaada yaa lagaaga guuleysan, weligaa yaa allaha qofna si xad dhaaf ah u aaminin. Mar walbana isku day in naftaada aad xakami kartid. Wax walba oo dunidan yaalo waa la wey karaa, waana la heli karaa. Sidee ku heli kartaa jacayl guuleysto?